بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته بعد حمد الله waxaanu mahad celinaynaa maamul iyo madaxba jaamacaddan dadkii ka mas-uulka intii aasaastayna alla u naxariisto geeriyootay intaa kadib darsiga la tilmaamay inaan ka warrama waa mas-uuliyadda uu leeyahay المثقف المسلم aqoon-yahan ama waxgarad ama indheergaradka qofka muslimka ah iyo kaalinta uu ku leeyahay islaamka faafintiisa iyo difaacidiisa aqoon-yahanku ama intellectualka qofka lagu tilmaamayo ama indheergaradka lagu sheegayo waa qof aqoon leh hadday tahay aqoon dhaqan iyo af iyo diin iyo culture iyo waxa uu ka soo jeeda ah iyo hadday tahay aqoonta bini aadamka mushtaraga ku iyo wadaago ee kale ummadaha ka dhaxaysaba waxaan rabaa darsiga inaan koobo sida awgeed tacriifta lugawiga ama musطalaxaadka ama terminolojiga aadanuhu isticmaalay tirada badan leh gaar ahaan akademigu tacriifta ay isticmaalaan waan isdhaafaya si waktigaan u ilaaliya waxaan u gudbayaa aqoon-yahanka aynu rabnaa waa kuma waa sese waa maxay kaalinta bulsheed ee laga sugaya aqoon-yahanku kow waa qof leh kayd aqoomeed rasiid macrifiya ha ahaato aqoonta dalkiisa iyo dadkiisa iyo dhaqankiisa iyo diintiisa iyo culturekiisa iyo identitygiisa haybsoociisa ama ha noqoto aqoonta kale akademiga ee bini aadamku uu bartee waxtarka nolosha u leh ama se fudaydisa qaabka loo noolaanayo idan waxaan leenahay kow waa inuu yeeshaa rasiid macrifiga ama kayd aqoomeed aqoon-yahankaa rabnaa laba waa inuu yeeshaa baynu leenahay qudra caqliya fi الnaqdi wالtaxliil critical analysis waa inuu noqdaa qof wax xufi kara aqoonta nin waliba maanta dunida taalla nin waliba intiisu ku darsadaa ini waa xaqiiqo inna waa dadku dhaqamada iyo kaljarada iyo afka iyo hidiyo dhaqanka ay leeyihiin waa lagu barxaa waa yarta inaad hesho wax saafiya oo barax tiran oo aan wax kale ku qasnayn si awgeed waxaan leenahay aqoon-yahankaan rabnaa waa qof aqoonna wata critical analysisna samayn kara qof samayn kara naqdi ama wax taxliilin kara ama af soomaali hufi kara aqoonta oo hufitaankaasi wuxuu keensanayaa dee inaad ishi iyo baalka ka tirtid ka reebtid oo wixii manfaca leh adduun ama aakhiro inaad qaadatid waxaan kaloo leenahay aqoon-yahanku shardiga saddexaad aynu u tilmaamayna waxa weeyaan leadership attitude inuu yeesho oo qof tawjiihin kara bulshadiisa iyo ummaddiisa irshaadin kara ama toosin kara jidka saxdaa u tilmaami kara waa inuu noqdaa hadduu saddexdan shay isla helo waa hoggaanka aqoomeed waxa laga rabo inuu aqoontii wato inuu wax xufi karo
iyo inuu leeyahay awoodda in bini aadamka la hogaamiyo oo samahana lagu hogaamiyo xumahana laga reebo. qofka intaa helay waa maxay mas-uuliyadda bulshadiisa ka saaran, ama se diintiisa ka saaran, ama se afkiisa iyo dhaqankiisa iyo hiddiisa ka saaran? waxay leena qofkaasi waa qofka abuura ama se sameeya wacyiga caamka ee ummaddu ay leedahay. ummad kastaaba wax collective oo ka dhaxeeya bay leedahay, bulshadoo dhan ay leedahay oo wadaagto. waa qofka abuura baynu leeyahay ka sinaacatu ra'yi aw ra'yi alcaam lilumma aw alwacyi alcaam. waa qofka sameeya. waxay leedahay waa qofka ilaaliya muqadasaadka ay ummadi leedahay, waxyaaba ay u baahan tahay inay ilaashato waan cidi kaga xadgudbin. waa qofka bulshada u tilmaama marjiciyaadkeeda iyo meelaha ay rabto inay cuskato oo markaa u noqda wax kasta meesha ay ula noqonayso. hadaabuu qofku muslim yahayna waa kitaab iyo sunna waxa uu ilaalinaya uu rabo in dadku ula noqdaan. mas-uuliyaadkiisa waxaa ka mida baynu leenahay waa inaaratu ariiq. dadka waa qofka toojka u sidee wax u ifinaya, qandiilka bulshadu ay wax ku aragto ama faynuuska ay wax ku aragto oo waxa loo ifinaya waa mushkilaadkeeda iyo dhibaheeda say uga bixi lahayd, mustaqbal san oo fiican sidii ay u gaadhi lahayd. waa qofka taasi u ifinaya. waxaan kaloo leenahay mas-uuliyaadkiisa waxaa ka mid hadduu qofkani mas-uuliyaddaa qaato inuu dadka diintooda ilaaliyo, dhaqankooda inuu ilaaliyo, afkooda inuu ilaaliyo, dadnimadooda inuu ilaaliyo, mushkilaadkooda inuu xal u raadiyo, mustaqbalkooda wuxuu ifin karo inuu ifiyo. hadduu qofku taa qaatana waxaa hubantiya inay ka hor imanayso taxadiyaad tiro badan leh, challenges, caqabado waaweyn baa ka hor imanaya. caqabadahaasi ha noqdaan caqabadaha bulsheed oo bulshadu culture bay leedahay. culturekaasi wuxuu u baahan yahay inta la hufo, intiisa sanna in la xejiyo, intiisa liidatana in laga tallaabsado. hiddahay dadku leeyihiin wuxuu u baahan yahay in la eego oo la eego maxaa casriga kan dadka iyo noloshooda anfaco la socon kara, maxaase wakhtigiisii aan la joogin. bulshada markaa inaad dhaqamadeeda ka hor iman kartid ama hufi kartid waa challenge. wuxuu kaloo u baahan yahay inuu waaqaca siyaasiga ka hor yimaado, waayo dadka politicianska in badanoo ka midii waxay xeeriyaan maxaa iyaga dantooda siyaasiga ay ku jirtaa, suu kursiga ugu soo noqon lahaa ama suu u ilaashan lahaa ayaa in badanoo ka midii xeeriyaa. laakiin qofka aqoon-yahankahi wuxuu isagu xeerinayaa maxaa bulshada dani ugu jirtaa, maxaa wanaagga bulshada taasi waxay keensanaysaa conflict of interest. saa daraaddeed challenge buu u baahan yahay inuu geli karo. waa qof baynu leenahay xataa nolosha caadiga wax badani ka hor iman karayaan. dunida aynu maanta joognaana waa duni isu furantay. waxay yidhaahdaan aadanuhu waagii hore markuu dagaalamayo qalcaduu samaysan jiray uu isku xeero. qalcadda iyo xusuuntaasi waxay ahaan jirtay inay bini aadamkan faraska wata iyo waxa kan inay iska xejiso. technologygu markuu horu maray waxaa fududaatay markaa in la dumin karo. awalan waxaa soo bilaabmay madaafiic oo derbiyadan lagu garaaco lagu dumiyo. ثانيا waxaa soo bilaabmay in xagga sare loo duuli karo oo maanta duwalku waxay u kala xoog badan yihiin marar badan siday cirka ugu kala xoog badan yihiin. waayo qalcadaha ummadaha oo dhan baad rabtaa inaad jebisay isku difaacayso.
marka la eega bay yidhaahdeen xagga dhaqamada iyo diinta iyo afafka iyo waxa kana iyana dunida weerar cusub baa ka bilaabmay adawaadka la adeegsanayana wuxuu yahay internet iyo TV iyo adawaatul ittisaal waxyaabahan communication ka cusub iyana waxay jabiyeen bay leeyihiin xayndaamadii dawladnimo iyo guriyeed iyo dad lahaayeen bay jabiyeen sadaradeed qof baa hagaya dunida dabadeeda fadhiya ayaa aragtihiisa ku hagaya oo aan xayndaab laga xidhan karaaba aanu jirin gurigaaga gudihiisa ilmaha yare jooga hadduu nadka galo ma fi dunya aakhiru dunya waxa yaaliya waxa lagu hayaa afkaariyo wax walba qolku jooga daa inay dawladdu celisay in xuduudda lagu joojiyay in dad xuduud xidha suurtagalba ma aha guri inaad xidhataaban hadda suurtagal ahayn waxa la jabiyay hadda xuduudda qolkaaga hurdada jajaban sadaradeed waxay dhahaan dunya kullaha makshuufa laan globalization kay sheegayaan waxa weeyaan dunidu maanta way qaawantay ninna wax kama qarsan karo waxay loo soo banbaxay markaa almacraka alkubraa bay yidhaahdaan baa caalamka maanta ka taagan oo ah afafka in la tirtiro dhaqamada in la tirtiro diimaha in la tirtiro qaabka loo nooliyo in la tirtiro in cidi xoog badato wax walba dunidu maanta waxay isku dayaysaa dhadhan qura inay wada yeelato saa daraaddeed baa TV-ga waxaa ka socda qof kica fadhiyo oo tilmaamaya saa waxa la isugu qaso xataa dhadhanka waxaa la rabaa in la wadaago oo aanad keligaa yeelanin intaadaad walaaqan jirtay sidaa ogeed dunidu waa laysu furay marka laysu furayna nin waliba ninba ceesaantii ceelkeed nin waliba wuxuu haystuu banka la imanaya aqoon-yahanka waxaynu ka rabnaa markaa ma yahay kii dhowri karayay waxeenna ee dadkeenna ilaalin karayay ee difaaci karaya ee ah jundiga ama askariga dhabta ee maanta xuduudda askarigii joogay laga soo tallow iyo ciidankii militariya wixii la dhigtay oo dhan waxaa la isku haystaa waa cuquusha bini aadamka hadda awtaantii iyo guryihii iyo waxaa la isla dhaaf caqligaaga ciddii degi lahayd baa la isweydiinayaa marka aqoon-yahankeennu ma yahay mid ilaalin kara ummadda cuquusheeda mid ilaalin kara ummaddu siday u fakerayso mid ilaalin kara ummadda hantideedii ahayd diin iyo dhaqan iyo af iyo waxay lahayd aqoon-yahanku markaa waa inuu qudwa lilmujtamac noqdaa baynu leenahay awal shay laga rabo waxay culammadu yidhahdaan afkaartu ma suurtagal aha inay si fiican u faafto haddaanay cid matasho lahayn waa inay wax practicala waa inay yeelataa waaqicay ku suganto bini aadamku waa indha ku garaadle wanaagga aad sheegayso isagoo kaa muuqda waa inuu arkaa qofka walidalik baa ilaahay qur-aanka nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay doortay oo rasuulkii dadka laga dhex doortay waxyigu ku soo degayay ayaa la yidhi dadaad ku dayatana waa lagu siiyey inta ilaahay ambiye soo taxay fii suurati alancaam ayuu wuxuu leeyay ulaa'ika aladiina hada allah fabihudaahu muqtadi kuwaasi baa ilaahay yidhi intuu rusul magacyadood soo sheegay kuwaasi waa kuwii alla hanuuniyey ee fabihudaahu muqtadi hanuunkooda ku daya baa la yidhi aadanuhu waxay yidhahdaan marka hadduu mabaadi' matelayo kama maarmo mabda'a cid tusaale u ah xataa bay yidhaahdaan aadam nebi aadam tusaale u baahday se cidi kama horraynin isagaa tusaale la isku siiyey markaa intaanu adduunka imanin inta janno la geeyey baa training la siiyey dabeetana la yidhi dhirtaaya waxaa ahaa cunin farsamadaa markii uu ku tababartay kadib baa dunida la keenay waxay leenahay marka horeba tan baa loogu sii talagalay ilaahay markuu abuurayay fii suurati albaqara muxuu ku tilmaamay waxaan abuurayaabaa ilahay yidhi khaliifatun fi lard innii jaacilun fi lardi khaliifa waa aayaadkii iclaamka loogu sheegay ee malaa'igta in bini aadam la abuuri doono ilaahay wuxuu u sheegay in dhulka khaliifo la geyn doono laakiin aadan markii la abuuray jannaa la geeyey waayo aadan cid hore ku daydo ma haysto isagaa la isku siiyey tajribada markaa bal trainingkan gal markaad ka baxdo dan nolosha waajih markaasi baa la yidhi waxaan leenahay aqoon-yahanku markaa waa inuu ummadda qudwa u noqdaa
haddaad noqoto qof afka ka hadla waxaan baa fiican kan baa wanaagsan kan baa wanaagsan adna tuug laga soo gooyay tahay waxba sheegi maysid warkaagu socon maayo warka soconaya waxa weeyaan warka qofka sida uu yahay mid isaga ay ka muuqato saawgeed waxay leenahay aqoonyahankeena waxaynu ka rabnaa laba sharti baa laga rabaa bay yidhaahdaan qofka aqoonyahanka xoogan macrifa iyo mowqif bay yidhaahdaan aqoon iyo mowqif istaagi karo qof meel loogu soo hagaaga leh tusaale wax ku ah oo waxa uu sheegayo bini aadamku kaga dayan karo imka dadka waxaad arkaysaa siyaasigu wuu hadlayaa wuxuu ka hadlayaa dowladnimo wadaad dadku way hadlayaan waxay ka hadlayaan corruption aqoonyahanku wuu hadlayaa waxbaa laga hadlaya waaqiciina kama jiro maxaa si ah innagaan moodalkii ahayn innagaan ahayn kuwii lagu dayanayay dadku tusaalihii baanu haysanay dadku hadduu madax arki lahaa moodal ah oo kuwii qudwada ahaaya kuwii lagu dayanaya uu ku dayan lahaa waxay idhahdeen cumar bin alkhataab baa waxaa loo keenay markii bershiya la furtay dee boqortooyooyinku waxay dahab iyo alaab iyo wax sideen baa la keenay markaasuu wuxuu yidhi ummadda kaa keentay alla waan ku dhaartay inay aamintay ummad ammaano leh dabeetana cumar bay ku yidhaahdeen haddaad daaqi lahayd iyoba way daaqi lahaayeen markaad dhowrsatay ayay dadkuna dhowrsatay markaad adigu dhowrsataa dadkuna dhowrsatay waxaan leenahay marka aqoon-yahanimada aan rabnaa waa mid aqoontaynu sheegaynay wadata oo ah inuu kayd aqoomeed leeyahay awood wax xallili karta ama hufi karta inuu leeyahay oo kin soo tilmaamnay leadership attitude inuu leeyahay hogaamin awood hogaamineed laakiin waxaan leenahay intaa waxa ula socotaa inuu qudwa noqon karo waa inuu mowqif qof qaadan kara yahay waayo haddaad waxna sheegto laakiin lagu arko marka mushkiladda timaado adoo reerkiina la safan marka gurigu yimaado adoo xantoobinaya dee aqoon-yahanimo ma jirto aqoon-yahanimo ma jirto markaa mawaaqiftii baa la la'yi mar haddii mowqifka la waayana aqoon-yahanimadii ma hayno mawaaqifta ilaahay qur-aanka markuu rasuulka tilmaamaya raggii la socday الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم بالي waxaa lagu yidhi dadkii oo dhan wuu isu kun soo urursadayee war cabsada baa la yidhi fazaadahum iimaana waqaaluu xasbuna allah wanicma alwakiil mawaaqif bay lahaayeen dad baa isa soo urursaday mabaadi'doodii kamay dhaqaajin iyo halkay taagnaayeen ilahayna wuxuu leeyahy falaa takhaafuuhum wakhaafuunii in kuntum mu'miniin war cid kale ha ka cabsanina aniga iga cabsada haddaa mu'min tihiin waxaan leenahay mas-uuliyaddan qofka aqoon-yahankaa ka rabnaa waa inuu danta caamkaa qof ilaalinaya noqdo alwaajib alkifaa'iy diintu waxay ina fartay labay u qaybsantaa wax waa fardu cayn qof walba laga rabo qof walba gaarkiisaa looga rabaa salaada qofna qof kama tukado qof walba isagaa laga rabaa salaadiisa waxna bulshadu markay isu tagtaa laga rabaa bulshadu markay isu tagto cidda matashaa waa aqoon-yahankeeda waa dadka wax garadka u ah waa dadka indheer garadka u ah indheer garadku hadduu isagu ka seexdo waajib kifaa'igii wixii bulshada laga rabay hadduu isagu ka seexdo oo uu isna xoogsi tago calooshiisa u noolaado reerkooda difaaco inta la ag joogto uu la wado aqoon-yahan maaha kaasi dadku ka mid yihi waxaan leenahay aqoon-yahanku waa saaxibu mabda'in waa hadaf waa nin mabaadi'na rumaysan taargetna leh hadaf u muuqdo raba inuu gaadho ku socda laakiin hadday aqoontu noqoto aqoon caloosha xukunto hadday aqoontu noqoto aqoon jahligu xukumo adoo aqoon-yahana markaad isla soo taagto reerka iyagu wartaa odaygaa ku filan hore loo hayay waxmaad soo kordhin taab kaab cid haysaabaad joogtay oo reerka afkiisa ku hadasha
hadday markaa waxaad soo kordhisay reernimo tahay gelaaga inaad raacataaba dhaantay oo waxba isku lugoyneen halka kale aqoon baan baranaya waxbaan wadi doonaa qiimo male aqoontu haddaanay midho lahayn wixii laga rabay haddaan laga dhalinaynin qiimo male bale adiga cadaab dheeraaday kugu tahay waayo jaahilka iyo aqoonta qof kale aakhira isku si looma cadaabo ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya laa yukallifu allahu nafsan ilaa maa aataaha ilaahay dadka ma takliifiyo ma saarin wixii la siiyey mooyaane qofka garaadka badan iyo qofka garaadka yar leh isku wax lama siinin de waa inaan isku xisaab noqonin qofka aqoonta la siiyey qofka jaahilka isku wax lama siinin waa inaan isku xisaab noqonin sidaa ogaad waxaanu leenahay aqoon-yahanku hadduu intii odayada soomaaliyeed hore hayeen uu hayo waxba muu soo kordhinayo aqoon-yahanka soomaaliyeed hadduu isna 4.5 la soo taagan yihi waxba kale odayadeedii ha loo daayo waxay dhahay mid tuulo joogaa neef qalay inta malaa layb gaadhiya wax soo baxay oo isiri cid baa ku iman doonta nin buu yidhi kaan neefka anaa qalaya adigu markaan iibiyaabaa kaa soo saari doonaa lacagta ku siinaya wixii baa suurtoobi waayey ninkii xoolaha lahaana wayse soo dul taagay warya haraggeeda inagaga celiya buu yidhi yaa un dib u nooleeyo seedii ka dhiga aqoon-yahankeenna waxaan leenahay hargeedii ku celiyay joogtaa yaa odayadeedu iskaga celiya seedii ahatee dowladna ma rabne waayo hadduu waxa la wadaa wixii uun yahay waxba kale ma soo kordhin haddaba waxaan leenahay aqoonta waxaan rabnaa inay noqoto xaariskii cuquusha da'yartan ilaalin lahaa ee ka ilaalin lahaa min atalawuth environmentka waxaa laga ilaaliyaa inuu wasakhoobo aadanaha caqligiisana aqoon-yahanku wuxuu ka ilaaliyaa inuu wasakhoobo aadanaha caqligiisa bulshadii aada la noolayd ciddii ilaalin lahayd ee ka ilaalin lahayd talwiidka wasakhda dabadaha kaga imanaysa iyo dhaqanadoodii hore waa isaga aqoon-yahanku waa inuu noqdaa misfaa bay idhahdaa weelkan aynu wax ku shaandhaysano maxaad tidhahdaa kolle xageegaa shaandhaa laga idhaahdaa kan inta wax lagu miiro wax lagu kala miiro aqoon-yahanku waa inuu noqdaa wixii wax miirayey ee miidana dadka u sii daynayay qashinkana ka reebayay laakiin haddaad adna waxba sii daynayso dee waxbaba ma tihid muxuu ilaalinayaa markaa waxaan leenahay taxadiyaad ama challenges gudeed iyo mid dabadeedba waa jiraan challenges gudeed baa jiro oo ah challengeka qabiilka challenges gudeed baa jiro oo ah challengeka mukhadaraadka challenges gudeed baa jiro oo ah challengeka aqoon darrida waxaasoo dhammi dadka soomaaliyeed oo wada haystaan dhibaatooyin qabiilku sababay baa haysta oo qaabka qabiilka loogu soo koray ah waxa u dheer mukhadaraad balwad ku soo korodhay qaad leh khamri leh xashiishad leh qurun oo dhan leh uu soo kordhay tiradiisu intiiba hore waa ka badatay awal dhowr laaloobar ayaa waddanka iman jiray dhowr laaloobar iminkana dee waxay maraysaa tareelayaal iyo dayuurado in lagu guro waxaan tareelayaasha iyo dayuuradaha lagu guraya market buu leeyahay haddii marketku uu engego ma jiri jireen tareelayaashan iyo waxa kale markuu marketku yaraa 3 laaloobar iyo 2 laaloobar bay ahayd idan xajmiga balwadeeda waddanka waxaad ka garan kartaa xajmiga balwadda soo gelaysa inta ay leeg tahay ayaa waxay tusaale u tahay bulshadu siday maanta balwad ku tahay waxaa kaloo jira ضعف الوعي العام aqoon darro guud aqoon darro diineed baa jirta oo mararka qaarkood aqoon-yahankaba haysataa haddaad diintaada jaahil ka noqoto dee aqoon-yahan ma tihin maxaad ilaalin wixii dadka ugu fiicnaayo loo ilaalin lahaa hadduu adigaba aad ka maran tahay maxaad ilaalinaysa waxay ahayd cid waliba inay ilaashan karto waxbaa jira bini aadamku aanu ogolaanin in looga soo dhaco waxaa ka mid ah diintiisa oo caqaa'ida iyo wuxuu rumaysay akhlaaqiyaadkiisa ummaddu valueska ay leedahay qiyamka ay wadatay ay leedahay waxaa ka mid ah afafka ummaddu afka ay leedahay soomaalidu maanta waxaad mooddaa inay afkeeda ka sifaanayso bal waxaad eegtaa xayeysiisyada meelaha lagu dhajiyo
waxay waxaad moodaa inaad London joogto xayisiiskeena af Ingiriisi ku qoray minaga waalan saacada ma laga heesay bay hor jiray yani Soomaaliyeed baa dhoofay baa raacdo Soomaalida ku badnayd dabeetana hees la tumayo maqlay baadiyada uu ka yimid marka wuxuu war mana waalan saacada ma laga heesay waayo dawxu salaahu baadiyini baa hees muqtaalahay adam baa hubayoodii laga qaadi doonaa baan ku talagelin saashay isweydiinta le waxay tahay nolosheenii oo dhan baa isbedeshay afkeenniiba xataa dhimasho ku sii dhadhow oo ka baxaya oo ku hadalkiisii uu sii yaraanaya ammaan bay noqotay qofku inuu afafka ajanabiga inuu ku hadlaba ammaan soo baxday nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya in allaha yabcathu lihadihi lumma cala ra'si kulli 100 sana man yujaddidu laha diinaha ilaahay ummadatan boqolkii sanaba wuxuu soo saaraa mid diinteeda u cusbooneeya diintu see loo cusboonaysiinayaa bay isweydiiyaan diintu waa waxyigii xagga samada ka soo degay waa wixii nabi maxamed loo soo dhiibay calayhi salaatu wasalaam iyada cusboonaysiinteedu waa wixii dusha kaga dhacay oo laga rogo waxay dhahdaan laba wax baa jira oo labadu waa cusboonaysiin u baahan aqoonta aadanaha caadiga aynu wadnay tan aynu jaamacadka u furanay cusboonaysiin bay u baahan tahay laakiin iyada cusboonaysiinteedu waa maxay waa wax cusub oo lagu biiriyo iyada cusboonaysiinteedu waa wax cusub oo lagu biiriyo markay diinta joogto cusboonaysiinteeduna waa waxa cusub oo laga hufo diintu asal bay leedahay waa asalkii in lagu celiyo fahamkeedu inuu ku noqdo kay saxaabadu fahamsanaayeen caqiidadeedu inay noqoto caqiidadii nebi maxamed waqtigiisii la haystay akhlaaqdeedu inay noqoto akhlaaqdii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waqtigiisii joogtay axad alculamaa aw axad alkutaab ibraahim asakraan nin la yidhaahdo kaatiba muslima nimankan sacuudiga hadda xidhxidhay ka mid ah ayaa wuxuu leeyahay kitaab la yidhahdo thaqaafat alghaalib dowladaha xoog bata thaqaafada yani wuxuu tilmaamaya cultureka dadka xoog bata inuu culturekoodu inta badan xagga sare soo maro oo muslimiintu waagay xooganaayeen dee yurub ninku inuu af carabi qoro ammaan bay ahaan jirtay shaar inuu qaato ama maro letteriska carabiga ay ku qoran yihiin alifbaadu ku qorqorantaha baa ammaan ahaan jirtay halkan iminka ABC-ga laynoogu soo qorqoro saasay ahaan jirtay gadhka in lala baxo maro fadfaada la qaato khamiis oo kale la xidho aqoon-yahanimay sheegi jirtay halka iminka tayga iyo uu sheego suud markaad xidhato la odhanayo ninkani waa aqoon-yahan waagaa wuxuu ahaa ninka khamiis xidhay gadh weyn la baxa dhulkii cilmigu ka yimi bay kaasaa khibradda iyo aqoonta tilmaamaya waa alvaro waa aqoon-yahanadoodii reer galbeedka nin qorayo calaacalayoo leh dadka maanta yurub jooga wax waraaq af carabiya qori kara aad baad u helaysaa buu leeyahy laakiin hal waraaqa oo laatiina cid qori karta heli maysid yani waxay udaba ku yihiin buu leeyahay luga alcarabiya iyagoo reer yurub ah afkoodii laatiinka ahaana ma qori karayaan buu ku calacalay waa halka maanta ina haysata wadaad af carabi wax ku qori kara ama nin kaloo ingiriisi ku qori kara waad helaysaa laakiin waraaq af soomaaliya haddaad aragto waa jacbur wuxuu ninkaasi qoraya thaqaafat alghaalib buuggiisaasi waxa uu ku tilmaamaya wuxuu u bixiyey التجديد التعاكسي cusboonaysiinta iska soo horjeeda buu odhanaya fii umuuri dunya wadiin arrimaha diinta buu leeyahy marka la cusboonaysiinayo waxa dambaa laga hufayo wixii horaa loo noqdaa waxaa la isweydiiyaa waxana wixii ilaahay yidhi ma yihi wixii nebi maxamed yidhi calayhi salaatu wasalaam ma yahay dabeetana kaasaa lagu dhaqmaa aqoontan sayniska iyo waxaan kale ku saabsana cusubna waxaa la yidhaahdaa maxaa cusuba soo kordhay adigu buugganaad haysato waa edishanadii koowaade dib baa loo rifayse gareeyo wax cusub baa lagu daray waxbaa soo kordhay qalab iyo aqoon iyo wax walba way soo kordhaan laba tusaaluu soo qaadanaya markaa isagu buuggiisa
وحلي وحن تصالي دين سينيا إمام الشافعي يا ألبرت أينشتاين بورنيا إمام الشافعي أصول الفقه مركو قرية وحو ذي سيدي دتك اللوجو علين لها فهم كي هراء مركا وحو كهوفيا وحي دين تكسو كرني وحو الربا خط البداية إنه دتك جيو هل كي وحكا صوب بالأبنين وحي ديرات كانوا كهوفو أينشتاين ألبرت أينشتاين هذا يهودية ويكت المامان أقوم فيزيكسكا ninkii ugu weynaayay dunida soo mara loo tilmaamo ama la yiraahdo aqoonyahankii qarniga 20aad ugu weynaayay soo mara buu ahaa bay yiraahdaan yani say u buunbuuninayeen hatta markuu dhintay waxay yiraahdeen ninkan madaxiisa hal qalo mala intelligence-kiisu ka bini'aadamka uu ka buuran yahay hal qalo madaxiisa laakiin markay maskaxdiisii gaadheen miisaameen waxa bay noqotay miisaanada yar yar bay yiraahdeen may noqonin dadka average kiiba ma dhaafsisna haddaanu kaba hoosaynin bay noqdeen markii ay maskaxdiisa miisaamayeen aqoonyahan buu ahaa caana oo la yaqaano xataa nolosha caadiga ah nimaan dhib badnayn buu ahaa israa'iil markii madaxweynahoodii koowaad dhintay bay u yeedheen oo la yidhi madaxweyne noqo basifiisan buu aaminsanaa wuu diiday dadku inay nabadgelyo ku wada noolaadaan ألبرت أينشتاين وأنا أهد عانا محاعا بحيي وحي اللي هيو دبربي ساينسكو هلكو تاقنا قارهان لبدي يصير نظريات قلت MC سكوير نظرية دي هاي هي جرافيتيشنال لو لبدي يصير نظريات وحي رأسنا على عقب كردقة حتى معتقدات يدولدو السنة ولسنتين لك هايستي ومثلا الدنيا waxay rumaysanaayeen kuwada materialiskiina weligeed soo jirtay jirina doonto laakiin nadariyadiisu waxay cadeynaysaa inay weligeed soo jirin inay waqti bilaabantay inkastoo isagu markuu mas'alada arkay uu ka yara warwareegay laakiin aqoonta markay iska daba timi waxay noqotay qasab in la qaato isagu salaxation buu sameeyo wuxuu constant buu samaystay uu ku salaxday sidii thaabit looga dhigi lahaa laakiin aqoonyahana ka dambeeyay markay dib u baadheen waxa cadaatay inay dunidu faafayso tatawassac ballaaranayso waxa uu faafayana marbu barbilow lahaa weeyaan meel buu ka soo bilaabay idan waxaan leenahay Albert Einstein wuxuu dabagadiyay nadariyaadkii dunida lagu hayay ee cilmiga waqtiga joogay wuxuu ku ammaanayay markaa inuu wixii hore burburiyay oo wax cusub dadka baray ayaa amaantiisu tahay ولذلك بقى عائشة رضي الله عنها نبي محمد عليه الصلاة والسلام لبا حديث بيكورن مثال لبدو صحيح مسلم كويا لي لبدو أركتدا إنه شيء إنه شيء جيا مد أنتوا نبغوا مدينة يمي أيو يضع تمر لطلالة يا يوري بحاكو فاليسان مرة سيد هذا وانا يبحني ورد اسكت ديسان ملا واضح دون تابو يري نبغوا بيرا وحوكا ما قوم بيرا لينا ما هي لكن رأيي يسمو شيء isaga say ula muuqatay gaatimireedkuna lab yar digbuuleeyo dawal isku talaala dan la isku talaalin ma dhalo dabeetana waxay dhahdeen nabigi baaba yidhi iska daayay sanadkii dabay bixiba weyday timirtii baa la waayay war timirtii maxaa dhacay waxay dhahdeen dawakii nabigu sidaa yidhi markii la iska daayayna saambay soo baxday wuxuu ku yidhi nabigu antum a'lamu bi amri dunyaakum وأنا ملاها يقوم باردين شيء كده أركين الدنيا ده كايجا يقارنا مسألة ماها مسألة وحي يقول سود جاي ماها هو أون رأي جاي كارجا سيل مغطي أركين الدنيا ده كايجا يقارن نبوه المامي عليه الصلاة والسلام إذا مسألة الساينس كقصاب سن أما أقوم تنوع كقصاب سن اسمه يسيم بمركز توباهن تاي أما أقوم الدين كقصاب سن عائشة حديث لما دوريني صحيح مسلم كويسنكو يالا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو الرد دين هي قاسي عندك سكر نسوى حنكم دهين وحي هاي محي مردود والقوع علينا ما أنت عندنا واحد مضارتين إنه معكوس كان لقناي إنه aqoonta bini aadamka maanta la wado waxba ma kuma daro
قلدنا مراكز البحث مالهن وحصب صوصارة وحي ينو الشيغان وبين اسكا دبا سoconna diinta se waxaynu rabnaa inaynu ra'yigeena wada sheegno sidan baa la yiri kan baa la yiri cid waliba ka hadlaysa marka arrinta waynu dabagedinay waxay diinka inaynu siisa u dayno nidhaahno ilaahay rasuulkiisa saasa yiraahdeen waxaan se bini aadamka inaynu wax ku dari karno aqoon keeni karno inagu waxaan rabnaa diinkana inaynu bidcayno sayniskana inaynu qallidano waynu waxba ku darin kii ay ahayd inaynu wax ku darro macnaheedu waxa weeye caqligiisii la rabay wamaynan shaqaysiinin halkii la rabay in wax lagu biiriyo kumaynan biirin laakiin halkii la yidhi waxba ha ku darina ayaynu wax ku dar la daba soconnaa walidaalika nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka sii digaya waxaa ka mid ahaa latatabicanna sanana man qablakum xadwa alqada bilqada xataa low dakhaluu juxra dabbin ladakhaltumuuh wuxuu nabigu yidhi kuwaa hore masiirkooda waxa u raacaysaan yacni halkay mareenba waa maraysaan xataa hadday god masalugalay galaan misacagaleeba masalugalay godkeed hadday galaan waa ka dabagelaysaan god masacagalay ammaan maaha meel la galana maaha wuxuu nabigu tusaalaha ugu qabtay maxsuuskee la dareemi karo wuxuu ugu tilmaamayaa waxaan macna samaynin xataa hadday sameeyaan intaad jabtaan baa iska daba soconaysaa su-aal bay weydiiyeen oo ay yidhaahdeen faris waruum ilaahay rasuulkiisiyo ma beershiye iyo romaniskaba waa labadii dowladood ee waaweynay markaa jiray markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi yaa kale ha iyagaa dabagelaysa axaadiid kalena waxay tilmaamaysaa alyahuud wanasaara الحافظ ابن حجر baa wuxuu leeyahay marka laga waramayo buu yidhi في سنن الحكم وسياسة الأمم وفارس والروم marka laga waramayo buu yidhi في شؤون الدين iyo bidacya waxa kana waa اليهود والنصارى waxay samayn jireen على كل in dadka wax laga qaato oo dunida inuu wax ka qaadanaa wax xun maaha laakiin waynu garanaynaa waxaynu ka qaadanaynaa wuxuu yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa anugu waxaan la mid ahay sidii guri la dhisay oo la fiicnaysiiyey oo meel qudho xabad labana ama jaajuri gashaa ka bannaantay oo ninka intuu ku wareego uu leeyahay talow halkan ama xabad jaajure la geliyo way fiicnaan lahayde fa ana labina buu nabigu yidhi aniga aan labnadii u dambaysay wuxuu kaloo tilmaamayaa inamaa bucistu liutamima makaarima alakhlaaq macnaheedu waxa weeyaan wax soo jireen oo fiican oo bini aadamku leeyahay waa jirtaa wax soo jireena oo fiican waa ka nabiguba tilmaamaya min kalaami nubuwati lula inuu ka mid yahay maxay idaa lam tastaxyi fasnac maa shita buu nabigu yidhi waxay ka mid tahay maxay wararkii ambiyadii hore ka tageen aadanuhu wanaaguu kala dhexlayay way jirtaa oo habboon in la ilaaliyo waxaa kaloo jira wuxuu ku dardaray oo aan khayr ku jirin oo raba in laga tago marka aqoon-yahanku waa qofka laga rabo marka ummadda inuu u kala hufo waxaas في قضايا السياسة محا دينتا وافقسن محا وافقسنين في قضايا الاقتصاد محا وافقسن محا وافقسنين في شؤون الاجتماعية محا وافقسن محا وافقسنين عندي إلا الربيين يهفته أو وحي تجربة بنا آدم واحتر لنا سوديسة وحي دينتي ربي سودة شيء خلاف سنة واحترك اللهينا دي بعلسة وكربته سأوجد انت بدن bay yiraahdaan alwaaqic wal waajib way iskhilaafsan haina saaran iyo maxaa suurtagal ah hadda jira inta badan way iskhilaafsan aqoon-yahanka ama faqiih qofka ah waa qofka labada iswaafajiya bay yiraahdaan waa qofka isku dayaya waaqaca nololeed lagu nooliyay inuu hufi karo oo waafajin karo maxay mabaadi'da iyo aqaa'ida iyo waxa uu rumaysan yahay أيها الأحبة warkaygu waa tilmaam sama badanayo wuxuu ku kooban yahay
qofka aqoonyahanka waxaynu ka rabnaa inuu diintiisa yaqaano inuu diintiisa yaqaanaa ma aha waxaad odayadii habra ka maqashay iyo suuqa wixii lagu hayay dhalinyaro badan oo academic waxay meelaha ka maqmaqleen iyo waxay reeraheennii ka soo gaadheen bay diinta u haystaan marka wuxuu isleeyahay qof waliba diinta waa taqaanaa waxba kama jiraan sida aad ugu baahan tahay science courseskaga inaad qaadato ama human science-kaasi aad course-ka u galaysa u qaadato ayay diintuna u baahan tahay inaad ogaato ilaahay iyo rasuulkiisu waxay yidhaahdeen aqoonyahan badan baan weysadu ka asixin soomaalida ama salaadoodu asixin waana ceeb qof 20 sano 30 sano wax dhiganayay oo weli masaladiisu ay joogto ee weysadu iyo salaadu inay saxdo waa ceeb runtii in qofku specialization sameeya waa mar dambe laakiin aqoon baa jirta basic oo qof kastoo bini aadama loo baahan yahay inuu garto diintaadu waa inaad ku biirta aqoonta basic-ga waxaa fardan cayn kuga ah inaad garan karta in maanta cid loo daba fadhiyo masaa'ilka qaarkood may ahayn qof waliba diinta waxa kaga waajiba waa inuu gartaa maxaa ku saaran adiga haddaad reer leedahay diintu waxay reerka ka qabto dhan waa inaad taqaanaa haddaad baayac mushtartay baayac mushtarka waxa xalaashiya wax xaaraanta waa inaad taqaanaa haddaad tukanayso salaada waxa ku asaxdiya waxa kale waa inaad taqaanaa haddaad soomayso waxay kugu asaxdiya waxa kale waa inaad waxaasi maaha cilmi cid loo daba fadhiisto waa cilmi baysigiisa oo u baahan qof waliba takhasuskiisa inuu garto marka koowaad marka labaadna halka aad ummadda ugu qunto xaaraanteeda iyo xalaasheeda waa inaad kala ogtay dhaqaalaad u baratay ummadda waa inaad garanaysaa dhaqaalaha maxaa diinta ku bannaan iyo maxaan ku bannaanayn maxaa horumarkeena iyo maxaan keenaynin fieldkaaga wixii ku sugan waayo haddii kale wax xufi kari maysid wax toosin kari maysid conventional economics qura haddaad dhigato dhaqaalaha reer galbeed qura haddaad dhigato dee waxba soo kordhi kari maysid way adkaanaysaa waa inaad og tahay waxaad adigu haysatayna wuxuu yahay kii alla kuu tilmaamay wuxuu yahay waa inaad og tahay si awgeed waxaynu leenahay aqoon baynu u baahanay inaynu yeelanno weliba waan ku celinayaaye dhalintan jaamacaadka dhigata kuliyaadka aan sharciga ahayn sharciga idinka inta idinkaga waajibtay waa inaad garataan waa inaynu aqoon diimeed yeelannaa ta kale aynu baranaynana waa inaynu sugnaa aqoontaasi waa wax fiican in la helo aqoontu aad mumaarasaysaana waxay hagaajisaa inaad hadhow wax xufi karto oo qofku markuu miisaankii helay wax ku miisaamayay waxa fududaanaya markaa inuu hufi karo oo kala hagaajin karo oo kala haadin karo oo garan karo waxeeda saxa iyo waxeeda xun culture-ka ummadda inaad kala haadin karto oo dhaqamada waxaynu u baahanay inaynu ka guurro iyo waxaynu u baahanay inaynu ku mintidno inaynu kala garan karno intaa kadibna waxaynu leenahay attitude-ka inaad dadka hogaamin karta waa inaad yeelataa qodobkaasi waa macrifo wixii ku saabsanaa qodobka labaadna waa inaad qof mawaaqif leh noqotaa qof mowqif leh hoggaanka dunida la sheegaa waa nin maalin meel ay adkayd istaagay haddaad geesi maqasho dee saacadun la kacay waa nin isagu saacaddaa sugmay ciidanku saacaduu jabay ayuunbuu u dhabar adayga markaasaynu dhaha ninkaa hebel waa geesi geesinimadu waa saacaddaa waa mowqif qof qaatay marka waa inaynu mawaaqif yeelana waa inaynan imaca noqonin xagga dadku jira un qof jira hadday qayeelaan la qayeela hadday wax boobaan la booba xaggii loo socdaba qof isaga socda waa inaanu noqonin aqoontu waa inay qiimo samaysaa si awgeed waa inaynu mawaaqif yeelanaa mawaaqiftaasi waxay keensanaysaa inaynu bulshada qudwo u noqonno dad ay ku dayan karaan inaynu noqonno qodobkii ugu dambeeya aan tilmaamaynaa waa inaynu garannaa maxaynu cusboonaysiinaynaa sesaynu u cusboonaysiinaynaa diinta cusboonaysiinteedu waa bidca iyo dheeha sare oo laga tuuro oo la reebo intii lubbul mawduuca ahayd wixii waxyiga saafiga ahaa ee xagga alle ka yimi wixii khuraafaadkaana laga reebo
diinta cusboonaysiinteedu waa taa tajribada bini aadamka cusboonaysiinteeduna waa in la ziyaadiyo wax lagu kordhiyo aqoon cusub in lagu kordhiyo waa kaasi idan waxaan diin tilmaamaya waajibka idin sugaya waa kaasi ee ma aha dhalinyarada in ka mida waxa maskaxdooda ku barograam garaysan wax baro si aad shaqo fiican u hesho gabadh qurux badanna u guursan kartid meel la u geli kartid waa hunguri intaas xooluhuba intaa waa yaqaaneen intaas waa intii hunguriga ma aha in loo noolaado intii loo noolaanayo waa mabaadi'dan aynu ka warramayno ee raganimadu iyo ninnimada iyo gabadhnimadu waxay ku jirtaa inaad booskan qaadataan laakiin in waxbarashadiinna iyo daalkiina oo dhammi maxaa la cunaa isugu tago maaha wax u cuntama qof bini aadama oo nool wax u cuntama maaha ee waa in hankeennu intaa uu ka weynaadaa oo noqdaa ummaddan saynu indho ugu noqon lahayn ummaddan saynu u bedeli lahayn ummad kasta cid baa beddeshay yurub inay soo guurto u soo guurto technology iyo aqoon waxa ka horeeyay enlightenment groupkii falsafatu tanwiir kuwii isku dayay in khuraafada iyo waxaan dadka cusleeyay ka radiyaan laakiin iyagu laba isku radiyeenoo diin baatilana way radiyeen khuraafo kale ay haysteenna way radiyeen adiga iyaak inaad diin saxa radido moodid enlightenmentkaagu adiga inuu yahay inaad waxyiga tuurtid innaga enlightenmentkeenu waxa weeyaan khuraafada inaynu ka faydno waxyiga kaasaa enlightenmentkeena innaga waxaynu u baahanay inaynu samayno kadibna ummaddu horumar bay bilaabaysaa horumar kastana cid unbaa jaajuurka koowaad dhigta ka labaad cid saarta la waayi maayo laakiin haddii ninba nin ku halleeyo halkeenaynu fadhiyayna sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin